madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid oo wehelinaya wasiirka wasaaradda qorsheynta Galmudug madaxtooyada Galmudug ee Dhusamareb kulan kula qaatay wafdi iskugu jiray wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midobay oo ay kala hogaaminayeen agaasimaha waaxda yareynta saboolnimada iyo xalka wara ee wasaaradda qorsheynta qaranka Marwo Sahra Cabdi Maxamed iyo ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ahna isku duwaha qaramada midobay ee arrimaha deegaanka iyo bini'aadanimada ee Soomaaliya mudane George Kanwe madaxweyne ku-xigeenka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid iyo xogayaha guud oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadka barakacayaasha ay Galmudug ku nool ay ku milmaan bulshada Galmudug. And we've come to discuss the state's development and humanitarian priorities, but specifically to discuss issues around internally displaced persons, IDPs, and collaboration that we have with the federal government of Somalia and the state governments across Somalia on searching for pathways for durable solutions for those who are in a state of displacement. Durable solutions mean trying to help people that have been displaced by climate shocks, droughts, and floods, or by conflict, and that find themselves dependent on humanitarian assistance, helping them to find pathways for the future, helping them to find stability in terms of their homes, in terms of the land on which they live, access to services, and their own livelihoods and job opportunities for the future, to help them restore dignity and optimism on their futures for themselves and their families. The federal government of Somalia is launching an initiative that's ambitious in order to try to address and to reduce the number of people that are in a state of displacement across the country. The UN is very proud to be a partner to that effort and to work on developmental solutions to displacement that build resilience and reduce the risk of displacement for the future. madaxdana soo booqatay UN-ta waxaanu ka wada hadalnay arrimo kala duwan gaar ahaan horumarinta Galmudug iyo qodobo kale oo ku saabsan xalalka waara sidii dadka barakacayaasha ah loogu heli lahaa inay guryo helaan oo ay ku dhaxmulmaan bulshada kale oo aysan qaxootiyaasha joogin dhammaan qodobadii aan ka wada hadalnay waa isla fahanay waxaanan ku heshiinay in dawladda Galmudug ay dadkaas barakacayaasha ah dhulkii ay degi lahaayeen caafimaadka iyo waxbarashada iyo amnigaba ay iyadu qaadato hay'adaha kale iskaashanaya UN-tana ayaguna ay qaataan dhismayaal u qalma dadkaas dhismayaal u qalmo ay degi karaan waxaan halkaan uga mahadcelinayaa wasaaradda qorsheynta federaalka tiimkii ka socday iyo wasaaradda qorsheynta Galmudug oo hawshan soo qaban qaabiyay waxaan rajaynaynaa insha Allah hawshan inay guul noogu soo dhamaato muddadii ay ku sugnaayeen wafdigan xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhusamareb waxay kulan la qaatay maayrada degmooyinka iyo wasiirro ka tirsan Galmudug iyaga oo ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira deegaanada iyo degmooyinka Galmudug. Cabdinuur Ciise Qaramada warbaahinta qaranka Dhusamareb.